quraysh markii ay uga dacwoodeen nabiga kaleey salaatu wasalaam adeerkiis Abu Talib dhowr jeer oo Abu Talib uu wax ka qaban waayay oo nabiga kaleey salaatu wasalaam uu soo dhiibi waayay ayay waxay bilaabeen nabiga kaleey salaatu wasalaam in ay dhibaateeyaan waxa kamid ahayd in nabiga kaleey salaatu wasalaam ay caayaan oo mar walba oo banaanka uu soo baxo oo xaramka uu yimaado oo dadka uu damcayna wax u sheego inay dhahaan waa beenaale inay dhahaan waa saaxir inay dhahaan waa nin waalan ee waxa ka dhageysanina oo dadka ay ka cayriyaan oo microphone ay ka daba qaataan waxyaabaha nabiga kaleey salaatu wasalaam ay ku dhibaateynayeen waxa kamid ah in ay cadaabaan oo torture gareeyaan saxaabadiisii kuwii dacafada ahaa ee qabiil difaaci kara oo ka dambeeya uusan jirin saxaabadaas dacafada ah oo quraysh ay dhibaateyn jirtay oo ay cadaabi jirtay oo maalin walba ay garaaci jirtay waxa kamid ahaa Bilal ibn Rabah Khabbab ibn al-Arat Ammar ibn Yasir iyo hooyadii Sumayya iyo aabihiis Yasir quraysh waxay bilowday markii dambe inay isku dayaan in nabiga kaleey salaatu wasalaam ay si physically ay u dhibaateeyaan dadkii ugu dhibaatada badnaa nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa kamid ahaa adeerkiis Abu Lahab iyo Abu Lahab xaaskiisa oo xaabo intay soo gurto iyo qodxaan u dhigi jirtay nabiga kaleey salaatu wasalaam wadooyinka uu maro dadkii nabiga kaleey salaatu wasalaam dhibaateyn jiray waxa kamid ahaa Abu Jahl maalin maalmaha kamid ah ayuu wuxuu yiri Muhammad hadii mar dambe aan arko isagoo tukanaya lugtayda ayaa waxaan ka saarayaa buu yiri qoorta ciid ayaana wajiga uga shubaya markaasuu wuxuu arkay nabiga kaleey salaatu wasalaam oo tukanaya markaasuu intuu soo orday ayuu wuxuu damcay nabiga kaleey salaatu wasalaam lugtiisa inuu qoorta ka saaro markuu u soo dhawaaday ayaa waxa la arkay ninkii oo argagaxsan oo naxsan oo dibdib u soo baxaya oo gacmihiisana saaleh hadhow baa la weydiiyay waxa la yiri war maxaa kugu dhacay soodigii sii socday oo lahaa Maxamed baan qoorta kaga istaagaya markaasuu wuxuu yiri Abu Jahl markaan u dhawaaday baan waxaan arkay biir oo kala dhex galay tog dab uu ka holcayo oo ay dul taagan yihiin wax baalal leh nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri waa malaa'ig aniga ilaalinaysay hadii Abu Jahl uu tilaabo soo qaadi lahaana malaa'igtaas ayaa kala goosan lahayd oo cad u tar lahayd dhibaatooyinka nabiga loo geysan jiray waxa kamid ah in maalin isagoo ku tukanaya xaramka 7 kamid ah gaaladii quraysh oo Abu Jahl uu madax u yahay ay yiraahdeen carqofkeeba intuu soo qaado mindhicirka iyo caloosha geela maanta la qalay banaanka taala soo qaado Maxamed madaxa ka saaraya Uqba ibn Abi Mu'ayth ba intuu istaagay wuxuu yiri ana sameynaya banaanka intuu aaday ayuu geel maalinka la qalay oo la sacrifice gareeyay calooshoodii iyo mindhicirkii iyo wixii oo dhan meesha yaalo wasakhda ahaa dhan ayuu intuu soo qaaday buu nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ka saaray madaxa isagoo sujuudsan nabigu kaleey salaatu wasalaam sujuudi kama uusan soo kicin ilaa markii dambe loo sheegay gabadhiisii Faadima bint Rasuulillah iyadoo ilmo yar ah intay timid ay nabiga kaleey salaatu wasalaam calooshii iyo mindhiciradii ka dulqaaday markaasuu nabiga kaleey salaatu wasalaam sujuudiisii intuu ka soo kacay ayuu toddobadoodii meesha fadhiyayba oo habaaray toddobadoodiiba ma aysan noolaan oo waxay ku dhinteen dagaalkii ugu horeeyay oo quraysh iyo muslimiinta dhexmara dagaalkii Badr wax walba markii ay ku sameeyeen oo ay ka daaleen nabiga kaleey salaatu wasalaam inay ka hor istaagaan dacwadiisa ayay waxay bilaabeen in ay qorsheeyaan nabiga kaleey salaatu wasalaam inay dilaan oo ka takhalusaan isku dayo badan oo ay sameeyeen waa ay ku fashilmeen oo waa ay u suurtageli weyday ilaa markii dambe ay soo dajiyeen qorshe ay ku cunaqabataynayaan nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo reerkiisa reer Bani Hashim